koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hooy hooy soomaaliyey hooy haddaad wax maqlaydhaan hadalkayga qaadho dalka hadimadiisii war waad waalan tahay bug iyo haw aad ku soo dhaqanto ku soo dhimatae maxay tahay dalka hadimadiisiiyo haw hadiidina heeska bacalwaan ma ahayn sidaa dalka horumarkiisiiyo hawl hadiidina buu ahaa waalan ku caliya adiga laftaadan fiyoobayne jenaraal haw ma soo dhowaan 93 baa dalkan laga ciri war dadweynow i dhegaysta xilli waxaynu joognaa faladegan tubaac yahay balballaar magool tahay war gabaygii cabdidhowsaas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tagay xishoodkii war saas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa nin xafiday ammaanada kan xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa jidadkii la xirayo shacabkii xaniban yahay xilli waxaanu joognaa xoolaha sidoodii dadka loo xarayn karo warhaadha waxaa taqaana malaga dhegaysta xidid iyo sokeeyiyo xigte iyo qaraabooy dabkan xawligaa kacay ha u noqonin xaabee xaalka nabadda aadmiga qof kastaa xil gooniya iska saara xaggiisa waraacan u gaani musharax abwaan miya war hatilay masiin lahayna balballaarka magoola bedeli marka lankun hadraawiya bedeli waryaanu waxaan u malaynayaa inuu dhoodaan bedelay war waxaa la yidhi nacayb hebel ku seejiya jacayl hebel ku naasnuuji naxli qoon adoegoo ma jiro sama ku naaxae halkaasaan ka sii wadahayaa nuunka maasada sii wad weligaaba annagaa soo gaabinaynayna dhegayso nin jacayl abaartan ku dhacay boodi kari waaye laamiga inuu jiifsaday tani qasbaysaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war laamigaada allaha gubee laami waa xiriin xaggee saaxanaysaa ma jiif baa loo diiday maridaa loo diiday war jacayl waxba kama taqaanana waxaa la yidhi soo wixii duqabeeso dabagaallo u geeya doq jacayl ma ahayn war jacayl qofaan soo marin baa wuxuu leeyahay jacayl baan soo maray ilmaha yaryarkaa hadda jacayl ka sheekaynay war hana xasuusinina wixii hore oo tegey ayay ma jacaylka gooya oo ku jabiye warniyo waxaan la yaabanahay faysal cumar xaashi maxaa kalmaan ku diray war faysal meeluu maruu waayey oo bac ka siiya inta ilaahay ku itixaamay bay jidadkii oo dhan ka xireen war bac ka siinaysa muraytars u diro hadda gurigiis baa bac ka sii xaalaya la wada dalacsiiyey laakiin waxaan la yaabanahay sababta saraakiisha hore loo dalacsiin waaye waxaana la yidhi sangabaaratamay kii balaysani boodi kari waa waree waxaadna ogayn inaad ka hadashaane kuwii hore maxay qabteen oo lagu dalacsiinayaa bac kasii waad ogtihiin siday bajaajley uga cabaadsiiyeen waree bac kasii in la dalacsiiyo waa mudan yihiin waad ogtihiin sidii waddooyinka ay dhagaxaan u dhigeen oo carray u dhooween hal waddaa furan inaa xidhaan rabaa birisilii dalacsiiye war horta nimaya war ma haysaana kuwa badan oo aan la dalacsiin baa jira laakiin ilaah odaan ku barnay aysa kuwaasi nagu dallicin annaga war ma haysaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi joon dadka oo aniga iga laayay ayuu ku dallacay cadaaladuna maray imaan doontaa ayuu sii raaciyey marka hanjabaaddiisa waxaan u fahmay marka aan madaxweyne noqdo ayaan dakareeto xilka uga qaadi doonaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ilowsan yahay saadiq inuu askari yahay askarina amarkii la siiye qaato berrina hadduu madaxweyne noqdo amarkiisu yuu qaadanaya marka bilaashuu cadaalada imaanaysa u leeyahay cadaalad kastoo timaa askari amar u qaadanaya warwar mahaysina ciidanka ammaanka dhuusareeb dawladda ku wareejisay bac ka sii ma ahan waa nabadsuguddii galmudug iyo ciidankii aalsunan la isku daray war inaysan bac ka sii ahayn waxaa la ogaanayaa markay xarardheere iyo ceelbuur iyo ceeldheer bug ka siiyaan waryaa galhareer iyo bargaan iyo jacar ayaan ilowdee ayagana maa bug laga siiyo balaayaha kugu dhacdee lamba tuulidu islaaka buri ay shabaab ka dugdi alla huray fade shaakadu waxay u eg tahay nin baceesantii ceelkeen war gaalkacyo dhinaca Puntland ay ka maamusho shidaal ma laga helay war shidaal ku gubay in lagu shidaal la diiday war gudoomiyaha dhalinyarada Jaafar miyaa laga shakiyay inuu khayraad taageeri rabo war Khadiija waxay tiri libax laba maaha war 2022 ayaa la kala ogaan doonaa bisadii libax war ma haysiine ganacsatada iyo shirkadihii balaaya u soo baxday daacish iyo shabaab ayaa ku tartamaya sida
siday u baabi'in lahaayeen mid weliba waxay rabtaa canshuurta middaas la siiya mid ka badan haddii ganacsatadu ay waayaan dawlad difaacda ma sii jiri kara ganacsiga soomaaliya war maxay tahay shabaabka iyo daacishkaad ka hadlaysa xamar maysa dawladdu ka talin war ganacsatadu hadday dawlad difaacda waayeen waxaan dhihi lahaa bashar ha isku dulayna beesadaad bixinaysa booshiyaa ka ku iibso war saas ma ahane waxaa la yidhi dar alliya si daacada dadkii dawladda u raacsan dakhligii iyo canshuurtii dalkana maalin qura diidin deganaanna waayiya ammaan soo dulmane maaha warna miya war mahaytana garamada midoobe warbixiin asaarti war adaa dhihi jiri buush weelkan buuyi ma macawnayso wada maya saas ma aana haydarookayso badi raba ayay waa yaabnay goormaa kimistirigan baratay war eembaano tabliinshadiha nkahoobataan oo dhegan sida warka weli arday qaranka kismaayo ku dhihi kii soo bax malaha yeeren waana walha abaabuli jawaab shalaysna ma mayba ku fadaane maamulka dawladda ikan kismaaya ilo laha edaay dadkii falkuunka dambeey tilaaba aala la'aada ina lakagaada war waxaa la yidhi jabhadaha gantaalaha qarxiya kii gunnada siiyey garaamkana ka taageeraya gumaca baaruudda iyo kii gurmanayoo lahaa gaagga balancansho mid bashaar ha noo soo gashada gurucya dheertiiye isku guuri labadoodu waa good iyo abees war miyaan laguu sheegin mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shaab wada shaqeeyaan war miyaan hore laguu dhihin ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya farmaajo maa xamanoosa waryaa madaxda soomaalida laba dallehe dambi ha isku gelinayaan xabsiga laydin taxaabine war waxaa la yidhi saldhigii cisbitaal qof rab lama geeyo qof rabana lagama soo bixiyo ma ahana waxaa la yidhi siyaasadi kuma fiicna jeeb maran jacaylkuna ka sii daran warnimada ciisajiinkad wuxuu yidhi dawladdu waxay tidhi eboolaha laga sheegay yugandaan ka hortegayna nimanka halkan fafadhiyana lagama hortegi karee sidaad isku qabanaysaa war ninkaad sheegaysaa waxba ma kala ogee meeqa qaraxoo dad ku baaba'ay baa dawladdu ka hor tagtay war somalilan iyo dawladda soomaaliya war ma heshiiyeen labaduba laba been oo kala duwan ayay sheegeen ma haddaa kuugu horraysa labaduba midba mar waxay sheegeen in arigii sacuudiga la geeyey la dejiyey hadda ariga xala markabkoo saaraa weli lama dejin ganacsatadina waxay dhaheen khilaafka labadu dhinac ayaa ariga u baaba'ayaa war maxaa loo deji waaya meesha maxamaali baa laga waayey ar wax ma kala ogide xamaali ha ku dilee naga tagniyo war dawladdu waxaan dhihi lahay in siyaasadda iska dayaan ganacsatada xoolaha u fasaxaan ganacsatada waxaan odhan lahaa xoolaha iska daaya siyaasadda ku fallisa nimanka war maadishid ninka wargaargaraa waryaada dukaama ma galataan dalkana uma shaqaysaane dulmiga jooj laga taga iimaanka allah idin gelisa